kiiskayga uga qaldamay oo maxay ahayd aniga aad ii saameeyay waxay ahayd ma helin qof garab siiya runta hadii laakiin Idriso arrintan Kampala xagee ka timid si ku soo imaatay yaa arrintan keenay macnaha ma ka wareysaa kolay baran research ku sameeyay waxa ii soo baxday heshiis inuu dhacay sanadkii hore August oo Museveni iyo dawladda administration ku dhaxmaray oo ay dhaheen waa aqbalaynaa waa qaadanaynaa dad waa noo keeni kartaan kadib waxaana soo gaaray warar ah United Nationskii inay ku kacday Uganda ay tirmo taqaanaa xiriyaha qaxootiga iyo dadkii halka lacagtan kugu siinayna waa ka xireenaa haddii aad Mareykanka aad ka ogolaato inay dad qaxootiga soo celiyaan masaakiina isjiid baa halka ka jiray marka laakiin Trump wadamo badan baa jirto oo hoosta kala heshiiyay oo uu ergo u dirsaday aniga xog kale aan hayaa xogtaasna atin dad badan oo Soomaali ma oga dawladda Uganda markii arrintii UN ku qabsatay Uganda waxay la timid cadeemo ee leedahay anaga arrintan ma keenin waxa keenay dawladda Soomaaliya iyo safiirka Soomaaliya fadhiya Uganda ay arrintan keenay dadkan in Muqdisho laga dejin halkan laga dejiyo arrintan dawladda Soomaaliya wadato aniga arrin wadana maaha maadaama dawladda Soomaaliya loo imaatana waa ogolaanay report ka ma ka wareysaa maya laakiin iyo arrintaas su'aal baan ka qabaa sababtay tahay sidee ku ogolaan si arrintaas ay macquul ku tahay at the same time wargeysyada nationwide midka Kenya ka soo baxay ka Uganda waxa ka akhrinayay inay joojiyeen inay dadka caadiga Etoobiyaanka iyo Soomaalida ee xiriyaha qaxootiga iska dhiibay inay joojiyeen aqbalayeen baabiyeen arrinta ayada ah Uganda ma joojin hay'adda dawladda UNHCR albaabada isku dhufatay because arrimo musuqmaasuq ayaa waxa ay ku kacday dawladda Uganda because dad Ugandese xirada soo galay marka hay'addii qaxootiga oo meesha joogtay iyo dawladda Uganda ayaa xoogaa wax isku fahmi waayay saas awgeeda meesha loo xiray laakiin hadda arrintan waa maqli doontaa maalmaha soo socdo idaacadaha AFP iyo BBC meelaha waa ka maqli doontaa arrintan Ugandese hadda waxay ku doodayaan arrintan ayaga inay arrinta qorshahan ayagaba inay keenin oo safiirka Uganda Soomaaliya u fadhiyo iyo dawladda Soomaaliya arrintan keentay marka arrintan way soo shacbixaysaa maalmaha soo socda maqli doontaan anigu waxaan kuu sheegay waa wax accurate information waaye kingo adaa ku wadaa waay Soomaaliya yani u keento waxa yani hadda ka hor way dawladda way ku kacday dawladda Soomaaliya Sweden baa madaxweynaha tagay Jarmalku tagay qaxootiga la soo celiyo meel badan bay dawladdan albaab badan bay qaraaceen oo meel walbo oo Soomaali asylum seekers joogaba albaabada wadamadaas dhan bay qaraaceen Jarmalkaba waa tuudahay lacag baa laga qaatay Sweden waxay tir lacag baa laga qaatay haddana waa keeskan saddexaad oo Uganda leeyahay hala keenay muwaadiniinta Soomaaliyeed because dawladda Soomaaliya arrinta raali ka ah Uganda ma sameyn karto mana aqbali karto neon sharci waxaa jira wadamada geeska Afrika ka dhaxeeyo marka Uganda waxay ka mid tahay IGAD marka waxa ay guddiga IGAD ogeen ma sameyn karto taasay local rules meesha ka jiro ma garatay right yeah sharciga IGAD waa ku garanayaa laakiin dalka Uganda wax walba waxa ka hor interestigiisa haddii Uganda uu Mareykanka uu ka dalbado arrintaas oo dan ugu jirto just because of Somalia will piss off Ethiopia will piss off Uganda will not do that Museveni will take any chance oo maaragtay waxa ku sameeysan karo midda kale arrin kale walaal meesha ku jira waxay tahay sheekada la leeyahay dawladda Soomaaliya waxaan ka dambeeyso wax cadeyn ah looma hayo sababtay tahay waxa ay sheegtaa interestiga ugu jirta maxay tahay in ay dawladda Soomaaliya ay tiraahdo Mareykanka dadka halka jooga soo celiya Uganda gay يعني وحي دازل بالمثل نياهو arrintan dawladda Soomaaliya hadda kali kuma kicin Jarmalka ba hata ay arrintan ka codsadeen
dowladda Sweden way ka hadashay Jarmalka way ka hadleen midowga Yurub way ka hadleen waxaana aan sheegayo wax aniga aan jeclahay maaha dowladdan way ku kacday falalka nooca ah maya لا ها لكن ادريس وحو كويدي what's the reason maxay ka no the faa'iideysan reason I have no idea aniga ilaa hadda ma garan karo because ma ila dhaqaalaha laga raadinayo dadka soo laabanayo I don't know anigu sheekada ma fahmin waxaana u ahayn mataqaanaa aan mid ka dhex galo mid waxa u ahayn Trump administration isaga campaign ku galay immigrant oo dhan inuu celin doono oo mataqaanaa wadamadooda ku celin doono waxa qorshe hadduu qorshe jiro cid wadato waxa wato Trump administration wato Trump Obama wuxuu wadankan ka tarxiilay 3 milyan oo qof ayuu ka tarxiilay laakiin 92% of those people waxay ahaayeen dad dambiye galay u badnaayeen Trump wuxuu isku dayayaa inuu Obama lambarkiisa xataa inuu ka kormaro isku dayayaa wuuna sameyn la yahay one of the reasons waxa weeye campaign-ka wuxuu ku galay dadka criminals kan tarxiilaya criminals waxay noqdeen 700,000 ay noqdeen dadka dambiyada isku dardaro dhan ay noqdeen from 40 sano iyo hadda 40 sano hadda uma taqaana wado xataa tiradaas inuu gaari waayo laga yaabo ayaa la qiyaasaya but at the end of the day Trump baa arintii la taaganay oo ana dadkan tarxiilayo ama aan Uganda ka tuuro ama aan ka tuuro wadan saddexaad asaga ama ka maqalna habeenii maalinle sideen dawladda Soomaaliya dusha uga saari karnaa niyahow waxaan aan kala hadlayo erisnaad waxaan aan soo samaystay ama aan jeclahay maaha dambiyada noocan ah in laga galo muwaadiniinta Soomaaliyeed hore u dhaceen dawlado badan baa arintaa ilaa hadda ay taagantahay la isku haystaa dawladda Uganda waxa ay ogeyn wadamada igad ma sameyn karto hatta interest-ka Mareykanka haduu dhaho dana Mareykanka no fully hatta ma sameyn karo because sharci waxa jira wadamada igad u yaalo way dhigteen marka he can cross the line Uganda nasa ogsoon tahay wadamada westernka hadda iskuma fiicna macdintii oo hatta laga qaadan jiray way joojiyeen meel walba Chinese-ka la wareegay Uganda shaalbaad soo saaranayaan Uganda is not like what it used to be and Uganda hadda waxay noqdeen dad very genius ah macdantoodii waxay warshado u sameysteen wadankii waxa maal gashanay Chinese marka Uganda ma aha Ugandadii hore taqaanay waxa soo hormarna waxay ku gaartay kiiska wadamada igad noloshoodana waxay ku xiran tahay wadamada igad marka